wadooyinka waaweyn ee Muqdisho oo maanta xiran waxaana afaafka hore ee xarunta baarlamaanka kontaroolada laga ilaaliyo la soo dhoobay ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxaana laga wareejiyay ciidamada ilaalada madaxtooyada ee Koofiya Casta waxaana aad loo hubinayaa gaadiidka iyo dadka isticmaala wadooyinka soo gala madaxtooyada iyo xarunta baarlamaanka warar ay heshay idaacadda kulan ayaa sheegaya in dadka qaar ee wata aqoonsiyada dawladda laga celinayo wadooyinka soo gala xarunta baarlamaanka dhanka kale war ayaa sheegaya in aad loogu baqayo amnigooda 15 mudane oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee u guddoonka golaha shacabka uu ka mamnuucay ka qaybgalka 5 kulan oo ay yeelanayaan golaha shacabka halka warar kale ay sheegayaan in guddoonka golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu qiimeynayo in laga doodo muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda ee waqtigu ka dhamaaday balse xildhibaanada qaar oo idaacadda kulan la xiriirtay ayaa sheegay in maanta aysan dhici doonin wax muddo kordhin ah oo la sameynayo xaaladda Soomaaliya ayaa ah mid cakiran tan iyo markii uu waqtigu ka dhamaaday hay'adaha dawladda